waa toobaneeye ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu dilooday maandooriyaha halista ah sida koolada, tubaakada, xashiishka iyo qaadka. Waxay ku nool yihiin isgoyska Ceelgaabta oo ku yaala meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Dhammaantoodba waxay jiifaan marshibiyadiga laamiga waxaana dhinac jiifa eeyaha. Sidoo kale waxay dhex jiifaan qashin fara badan oo laga soo fogeeyay xaafado ka mid ah degmooyinka Xamarweyne, Waabari iyo degmada Xamar Jajab. Xaalo oo dhan iyo maalmihii ka sii horreeyay waxaa dhalinyaradan dushooda ku hooraya roobka oo aysan lahayn meel ay ka galaan. Wadadan oo isku darsatay burbur, biyo dhex fadhiya iyo nadaafad darro, sidoo kalena ah halka ay seexdaan dhalinyaradan waa wadada kaliya oo ay ku safraan madaxda qaranka sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya markii ay safrayaan amaba ay dalka dib ugu soo laabanayaan. Daqiiqada ka hor dhalinyaradan oo dhex jiifta eeyaha, qashinka faraha badan iyo biyaha roobka waxaa sidan ku dhex maray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish. haddana sidoo kale waxay wadadan u xiran tahay ra'iisul wasaare Rooble oo ka soo laabanaya safar maalmo qaatay oo uu ku tagay magaalooyinka Garbahaare iyo Kismaayo halka madaxweyne Farmaajana 4 sano iyo dheeraad oo halkan ku safrayay. qaar ka mid ah dhalinyaradan darbi jiifka ah ama koolada ku caba isgoyska Ceelgaabta ee Muqdisho oo la hadlay keenan waxay sheegeen maalmo ka hor mid ka mid ah dhalinyaradan halkan lagu dilay waxaana dilkiisa fuliyay nin bastoolad wata oo ay damceen inay moobeel ka dafaan. والله حقيت انت هلكان حمريني اي ماشي انا ساعتها اي قاقس او قوسكا يا قوسكا يا قوسكي واجيبه حقي جرا كاران اي انت محابته جد يو كوليو خمريو اي ما لو رني صاحبك waa la dilay lagu yiri kaas Amindi صاحبك ma la dilay Amindi bastoodo diiri hadda maxaa u baahantii marka hadda baana inuu ilaahay karnooge baasha ma iska dhaaf koolada maxaa u cabaysaa koolada ma waa barti waxaan ku bartaa baasko noqdaa waa barta اي ما بقدي اي walaalo saaki walaalaga Soomaaliyeed waxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed inay wax noo qabato walaalkeena Soomaaliyeed oo meesha lagu dilay inay wax noo qabato u baahanay yaa dilay nin baaro wati ma naqaano walaalo dawladda waxa ka codsanayna inay wax noo qabato xabad miyaa lagu dhuftay bisoola lagu dhuftay muxuu sameeyay marka walaalo meesha wiil kale inta meesha joogay telefoon qaadanay telefoonku ka daba orday telefonkii isla markiina waa la biraal iska soo jaray marka adigu dadka meeshan jooga ma kamid tahay dhalinyarada maxaa ka qabanaysan halkan jaadka ka shaqeysana suuqa ka shaqeysana baawta ka shaqeysana walaalay Soomaaliyeed waxaana inay noo qabtaan inta u dhaxaysa wadada Martiini iyo isgoyska Ceelgaabta waxay kamid tahay goobaha ugu burbursan uguna nadaafadda xun gobolka Banaadir waxaana ka jira ganacsi badan waana marin muhiim ah oo ay isticmaalaan mas'uuliyiinta dawladda. dadka dhibaatada ku qaba halkan waxaa ka mid ah ciidanka ilaalada wadooyinka ee isgoyska Ceelgaabta ku sugan. mid ka mid ah ciidankaas ayaa uga warramay keenan dhibaatooyinka halkan ka jira. jaamka iyo wadadii godad haddana dhiiqa oo sarwaalka inaad inta geesato ay danta ku qabto waayo nina dhexda tiin ma kala furi kara wadada hadduu sanadka dhexda tigin maba kala furi karaba barkee midba badka seedka soo galay waagi hore xawaay askariga inta istaago saas yiraa oo wax kala hagi jiray hadda waxa inaad bay force xoog ku celisamaan wax joogsanayba malaha dadkii tababarkii wixii waa ka dhumay saamaynta dhiiqada iyo macna jidka wadada godad naqatay oo kan meesha fiican ay soo wada aadaan meesha fiican waxa in seedkiisu waa kan kale war meeshan seedkaaga ma ahan ee seedkaaga mar maba is dhaxaaya wuxuu soo aadaa meesha oo godka ahdo asaga oo leh waa la isku dhacaa mar maamulka gobolka Banaadir ayaa u muuqda inuusan wax mas'uuliyad iska saarin daryeelka dhalinyaradan iyo nadaafadda gobolka Banaadir sidoo kale waxaa xaaladda dhalinyaradan sidan ku daawanaya madaxda dawladda ee hadda jooga iyo kuwii ka sii horreeyay oo xilligoodii ay sidan ugu noolaayeen. dad badan ayaa isweydiinaya haddii madaxda dawladda iyo kuwa gobolka ay dharaar iyo habeen dhex marayaan dhalinyaradan oo aan ka badnayn 50 qof isla markaana aysan arkin ama ku baraarugin baahiyaha haysta
goorma ayaa lagu baraarugi doonaa dhibaatooyinka haysta Soomaalida kale ee ka badan 20 milyan.